deni waa dhisaya laakiin hay ilaawin inaad meesha ka hadlaysaa Hargeysa tahay sanadkan waxaan bisaynaa oo aynu bisaynaa oo aynu isdhisaynaa weliba oo aynu wax la qaybsanaynaa waxa weeyaan hogaamiye Siciid Cabdilaahi Deni xagee laga dhisayaa Siciid Cabdilaahi Deni hadduu kursiga xasan sheekh dhigi waayo dhulka hadduu sanduuqa dhulka dhigi waayo uu ogolaan waayo madaxweynuhuna Deni buu noqonaya laakiin hay ilaawin inaad meesha ka hadlaysaa Hargeysa tahay Deni waa dhisaya waan Hargeysa jooga dhisaya guriga way tagaya badii guriga way tagayaan casuumad rasmi ah baa ka helay maxaa isbedel waana way tagayaan isbedelay iligiisu waxa isbedelay waxa weeyaan waa siyaasadda isbedeshay iligiisu waan dhisana guriga waanu ka dhisana caasimadna oo guriga meesha bahalgaleen ka hawa laga raya mawduucan maanta aad ka hadlayso Hargeysa aad ka hadlayso Soomaaliland inaad xadhi ku muqosan kartaa ama waxa weeyaan ma aniga haysataa anuu fasax haystaan geli koran xamar baan ka soo qadiyay ka soo cashay geli ka dambana aad samaan tagaa Djibouti baan ka degaa haddana guriga ayaan tagayaa dhageyso korreelada baan aniga aabahay geelo dilo dad nool mawda ani korreelada waxay waayeen diblomaasiyiinta dowladda xukuumadda waxaan leeyahay iyo wasiirada cusub adeer wayna noqonaa cid jaangoynaysa madaxweynaha Soomaaliya innaga wayna noqonaa oo aynu ka shaqeynaa in hore baan ahay 7 sanadood san hal jiray ay waliba korreelada haysteen aan juuqleeyna jirin tanna iska badaayay in cid juuq diraado korreelada waxay ani fasax aan ka haystay baba ka digay idaa dambiga shaqada buu qabanay ma hada dambiga ku galay waxa dambiga galay okay aduma dambiga shib hada lagu xiro haddana Siciid Cabdilaahi Deni baan soo madaxweynaha Soomaaliya u dhisaya shaqada ay ku dirsaday shaqada waxay dirsaday ana madaxtooyada 1 jeer baan ka macay baa shaqada bardamiir yahay taabasho hadda jijigeer baan joognaa halka fadhiga inta meelada fadhiga maqaaxiliga ka ay meherada ay soo mareynay baaburku inta daaqado inoo deganay wadaadkiisi haddaan masalaha tago wad arkisi ni Hargeysa waan soo wada raacnay cid walba way soo istaagaysaa mee aan kale ayada kala ma jirto waayo ma ay tamo tolku waa itol reer Soomaaliya oo ramaadaan tago calima qoyn malik soo dhiman waniga waftiga yar Soomaal tagnay wanti jaamacad amina lagu soo dhaweeyay berbera waa tii jaamacad berbera geligeeda gacanta la geliyay maxaad sheegaysaa qiimaha asagu dabigeeda berbera waa tii lagu soo wareejiyay gacanta lagu dhigay sen ka diir salaale ku soo dhawaada sakariya saajino waxaas oo saqar kacib ma warbahay kaadi may wax xushmad fuadiyad weeyaan qaaliya dadka ka hadla media yaad ka mid tahay dadka ka habqaamkayga hortiyo taytarkiishan laga hadashana anuu siyaasi baan hay ka faaloodo falanqeeyo siyaasadda manihi qof media ka waayo waxyaabaha ka wariyana mi waayo waxyaabaha ka hadasho yaaba kama hadlaya anuu siyaasad ma falqeeyo ka hadlo waayo siyaasadaad ka hadasho siyaasadaad ka hadasho waxa weeyaan siyaasad madaxya badan shay waxbaad ka hadlaysa dadkaad xushayaysa sida maanta oo kale xukuumaddii Muuse Biixi Cabdi baa taageero u ahayd dhinac taagin xisbigan imka kursiga ugu fadhiya iyo madaxweynahan jooga waxa weeyaan dadkii ka soo horjeeday baad ka mid ahay ee lahaa haddii gacantiisa ay dowladdu gasho ama xukuumaddu gasho halis bay Soomaaliland ku jirtaa laguma aamini kara qaranka waxaan bogaadinayaa noloshan iyo studio qurux badan leh wan qashiisana waan sugaynaa haddii Ilaahay ka dhigo Ilaahay ku baarako waana mahadsan tahay Hagen TV wariye baylo iyo bahda Hagen TV ba inta wada salaamay lagu wareem way horta waa lagu nastay isbedelkii dhacay in badan baa la arki jiraan oo qaylinayo oo xogo amni la gucleynaya oo inta telefoonadii iyo fariimihii halkii loogu talagalay iyo boosii lagu hagaajinayay intaba intaan la waayay oo jiray warayay ka kacay halkaas wax ka soo socdaane waxaynu helay xagga amniga haddii xog amni noqoto iyo haddii xog niima ay noqoto in rag dhalinyaro ah oo update ah oo hay'adaha amniga u saaran kay doonto baa noqoto oo fariintaad la wadaagtaa isla markiiba jawaabteedu kuu soo dhacayso marka fariimihii badnaa ee dowladda iyo shacabkaba aan baraha bulshada u marin jiray waxaan kaga baaqday rag heeganu ah oo furfuran oo update ah oo digital ah ayaa isbedelkii mas-uuliyey hay'adaha ammaanka shaqa dhaaragteeda lahayd marka hore shaqo waajibaadkayga muwaadinimo ah ayaanu haynay oo ah qof kastoo muwaadina in uu waajibkiisa maadaama ahayn in anigu aad u fara badan oo ciriir badan oo u dumdheer waa ka tirsanay may odhan maayo ka tirsanaa laakiin waxaan ahaa muwaadin waajibaadkiisa qaran gudanaya oo soo qaabay ay raacay waxa adiga kuu raaca suxufi baad tahay somaa baaris iyo dabagal baad samaysaa xukuumaddan uu hogaaminayo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waad og tahay oo dee muddadii koobleedii joogtay waxqabadkeedii dee sheegima inuu qof kasta muwaadin oo nafli u leewu garanayaa colaadihii dibadda lagaga soo rujuumayay ee hubaysnaa
iyo weeraradii joogtada ahaa caawa waxbaa jira weerar baa jira ilaa ay ciidanku ka hordiyey ilaa ku soo jeeday horta arrintaasi way istaagtay arrintaana xal diblomaasiyadeed aan ciidanka qarankina aanay tallaabo xadgudub aan cid ku qaadin oo aanay ciidankii maleeshiyaadka madaniga ahaa ee iyagu aan cidi kontrooleyna gacanta ayaa lagu dhigay maanta waa ciidan qaran tababar bay ku jiraan qaybo ka mid tababaro kooban bay ka baxeen runtii horta xaggaas xuduudaha colaadii dhiilada joogtada ahayd way hakatay runtii waxaa kaloo sid mudan qofka aan ilaahay u mahadnaqin biniaadamkiisana u mahadnaqo madaxweyne cabdiraxmaan cifro runtii dadku waxay odhan jireen waa diblomaasi dadkii weliba dee inta badan aqoonta dheer u lahaa oo waxyaabihii jimcaraacii baa tagtay igama soo qaadee aniga laftigeygu aakhirkii dhegtaygu dhacday ee aan ku doortay ama aan kula ololeeyey runtii shaqadii diblomaasiyaddii qoontii waana ololeeyey dhiiggan shubay ragii 7 sanad xigsanaa intaan kala qabtay ama kala hawlgalay aan berber istaagay ka badan baan la berber istaagay marka cod iyo cududba oo soomaalida taagnaa sodiisha la qaranka lagu aamini karo taasi waxay dawxil taasi waqti bahay maanta aan laga hadli maayo maanta laga hadli maayo runtii waxa weeyaan anigu fikirka marbo dadku kale fikir qaba imika qaar badan dadkii taageersanaa xukuumaddii hore oo weli ay qacdi dhagahooda kasii guuxayso ayaan weli aanay ka dhacdacsanayn oo runtii weerarkii iyo waraaqii cadowga ay soo iyo weeraradii diblomaasiyada laynagu soo qaaday ee u soo cabatimayey ilaa iminkana waxaa runtii aan doonaya halka ka xuso waa inaan madaxweyneyna berber istaagno wax wanaagsan buu qabtay meyd maxaa ugu dambeeyey iyo kaana sii sido kulankii maanta ka dhacay beesha caalamka kulimadii uu la qaatay iyo hay-adihii caalamka waad arkayseen adduunka may dhicin kulan intaa leeg oo miqaamkiisu kii ka horreeyey wuxuu ahaa kii imaaraadka runtii waxa weeyaan waan madaxweyneyna oon mahadnaqaynaa waxaan kaloo doonaya halkan inaan ka bowgaadiyo oo dhammaanteen muwaadiniinteenna ka furtay oday geeljire ah oo bashiir la yidhaahdo oo dhowr kunoo geela leh ayaa madaxweynaha wuxuu ku dhiirigeliyey konton geela oo u balan qaadan inuu keeni doono gacanta kasoo gelin doono runtii wax kasta inuu samayno muxamed baa in madaxweynaha geel siiyey waa la doortay oo geel baa la siiyey ma difaac maxay tahay qoladii masaska cunaysay safar yar loo tago saacada ay madaxweyne markuu soo noqdo khayriyaddii adduunka oo dhan habaasu isqarinayay misal laha iyadoo maanta dumayaad ka mid ahay Soomaaliya inuu madaxweynuhu maanta laakiin waqti mid aad jabiyey maanta uu jabiyey maxaa la siyaasaddii Soomaaliya iyo quwadihii caalamka ay adeegsanayeen iyo quwaddii veto powerka ee China iyo Qatar uu maanta jabiyey maanta aragtid Nairobi say u kala xidhan tahay waxa weeye dhiirigelinta geela iyo mid ka badan buu istaahilaa anigu madaxweynaha dabacadihiisa isagoo inooga sii sheegay uu yiri ma jecliyada ay soo bambaxo oo dadka qorraxda iyo dumarka ciyaalka la soo saaro waxaan jeclaan lahaa in caleemo qoyan lagu soo dhaweeyey intaa markay ka nimaadno intayna ka tegin dadka ka hadla media yaad ka mid ka tahay dadka ka hadlaamkayga horta iyo taytarkiishan laga hadashana anuu siyaasi baan hay ka faaloodo falanqeeya siyaasadda manihii qof media ka waayo waxyaabaha wariyana mey waayo waxyaabaha ka hadasho yaaba kama hadlaya anuu siyaasad ma falqeeyo ka hadlo waayo siyaasadaad ka hadasho siyaasadaad ka hadasho waxa weeyaan siyaasad madaxya badan shalay waxbaad ka hadlaysa dadkaad wax u sheegaysa sida maanta oo kale xukuumaddii muuse biixi cabdi baa taageero u ahayd oo dhinac taagin xisbigan iminka kursiga ugu fadhiya iyo madaxweynahan jooga waxa weeyaan dadkii ka soo horjeeday baad ka mid ahay ee lahaa haddii gacantiisa ay dowladdu gasho ama xukuumaddu gasho halis bay Soomaaliland ku jirtaa laguma aamini karo qaranka gacanta Soomaaliland bay ka baxda maanta haddana waxa weeye halkii loo socday baad u baydho adigana haddana waxa u sacabatumaysaa waxa weeye shalay toole nidaamkii aad lahayd dadkan aad la hadlaysaa waa dadkii shalay aad la hadlaysay bal fasir waa runtaa bayloodu dadkii aan la hadlayay shalayto allaha madaxweyne cabdiraxmaan cifro ila doorta ha ma doorashada ka hor halkaygii dambe soo qaadan mise halkaygii ma shalay un bay ahayd markii doorashada geeyay u bay tan ahaydee magaranaysaa laakiin 7 sanadood oo madaxweynuhu waxa weeyaan uu ku jiray bayloodu siyaasaddu ma faham fiican aad ka haysanay siyaasaddu marka aad tahay muwaadin oo siyaasi ag madax bannaan siyaasaddu waa maxay waxa weeye markaad madax bannaan tahay siyaasi hore oo madax bannaan oo ahayn la haystee
ama wax lagu buneeyo ama haysan وسياسته تضبط سنة ده كده كل شيء جيسي ما أنت واحد كمان وش يا جماعة سياسته ها siyaasadu waa isbedel ka dhacaya maalin walba aan joogto dhahay waadugeedo shalayto dowladda Soomaaliya iyo Kenya say isku ahaayeen maanta say isku yihiin iyana دنا هو ده يصير حاسي واحد ليك دناها وضنا اسمه فرض فقاعدوا بالسياسة دنا استعبا تو دنا كل شغلين ايه عرفت شلون كل شغلين يصير مسبب كل يحتاجني كل هذا فيري يصير وحوي عبد الرحمن الرو ما أنت أنا أبو صعب طمي يصير لا يقف قريب بتشجيع ولا بينك لا oo ku soo wacan waa xaq uu sheeg xilliga Cabdiraxmaan iyo xukuumaddiisa اللي قال حد يدري مياه maya sees waadax oo aad ku sheegaya xilliga wuxuu dalku dagaal ku jiray aanu ciidan diidanaa aan ka soo jeedin ciramo ahayn ciidan kala aragtida duwaneen waxay dad si cawaj ah oo ilaa imika aan aragtida diidanahay aan dhameeyo oo xilliga ugu adkaa كيسين بداية ما يدري سومان bilaa kale ugu soo qaaday dhageysa dalkeena أفكر ما يدري ti badan may qaraac badan aragti badan oo وريه حسن يجي كذا أنا gaasha taageerayaasha mucaaradka oo dhan baa lagu sheegaya xilliga oo 2 sanadood uga harsaneyd xukuumaddii hore dagaal adag inay ku jirtay raggii ciidankana ka soo horjeeday ee weliba taageerayaashii ku sawirnaa وياه maantana madaxweynaha waxa ku jeclahay يا madaxweynaha ku jeclahay kuwii shalayto dhiiqaysma أصبي بين قاعدة أنا maarmay أصبي رجلي شيء كذا فين تعرف بيش إنه كذا أصبي جو حلو جامين هي حسي dayana هي حسي بهم جامين fasl ما أنت أنا يجي بهم جامين فدي تاجر سنة واحد كله لكن بكل يديدني واحد هي أصبي وجامين هي نكلي هذا samika waanu xirsi cirro anu madaxweynaha ka hadlayay xukuumaddiisa hadda baan xisbiga ka mid hadda daman ku cadeynay أصبي كانوا taageerayaasha يا أصبي كانوا كسب taageerayaashiisana laba aragti maan ahayn in badan ilaa imikana qaar badan isku aragti manihin iskula noqon mayno lana aragti maan ahayn wax badan baan diidanaa laakiin alxamdulilah madaxweynihii markii qaranka loo dhaarin هذا ما فرش قاعد بها meega iga dhex gelin kuwii anigu diidanaa aragtiyooda xilligaa waxaan u haystay inay yihiin kuwa dhiiqaysanaya ee shacabka hadda qaaraan looba dirsan oo iska guulwadayaashii la odhan jiray xilligii kacaanka ayaa waxa caddaatay madaxweynuhu markii ay هذا يا أخو kiisu hangool faraara iskaga qabteen wixii dhiiqaysan jiro oo dhan maanta waa dibadwareeg ana madaxtooyada 21 jeer baan qaaday kooriyayso kuwii xilligaa dhiiqaysan كور ما قش aan ugu tirinaynaa madaxweynuhu isku cadeeyay uu iska baraxay waa kuwa dibadwareeg ah ما قبل هنا كوتا كلها تشتغل anigu madaxweynahayagana agtii sharaf far kale ee xukuumaddeeda sharaf far kale tii horena sharaf far kale waa la soo shaqeeyay tan waa la shaqeynaya معاي بقى شغال بردمير يعني هذا شوف hadda jijigar baan joognaa halka fadhiga inta meelada fadhiga maqaaxiligii kacay meherada aynu soo mareynay baabuurku inta daaqado inoo deganay wadaadkiisi haddaan masalaha tago wad arkiisi niyo argeysa waanu soo wada raacnay cid walba way soo istaagaysaa mee aan aana kale iyo dakana ma jirto waayo ma aytamo tolku waa i tol reer Soomaaliya oo maadaan tago calimo qoyn bal iibsado waniga ani waftigii rasanaal tagnay war tii jaamacadda amina lagu soo dhaweeyay berbera waa tii jaamacad berbera geligeeda gacanta la geliyay maxaad sheegaysaa qiimaha saku gabigeeda berbera waa tii lagu soo wareejiyay gacanta lagu dhigay sen makadir salaale ku soo dhawaada sakariya saajino waxaas oo saqar ceeb kuma ahayn warbaha ukaadi may wax xushmad fuadiyad weeyaan qaaliya jaamacadda amin shidiisi waniga ka qaadina shiribka waxaas oo dhani inay boog wax weeyaan u noqdeen xukuumaddii waqtigaa joogtay weeyaan systemka dowladnimada Soomaaliland yaa waa Soomaaliland bifadlikum inaad heestii waxaad qaadataan oo ku cilcishataan qacbaan cabki ka yeedhay heestaas ah ku dhigi qaranka meesman hawma beesahaasi wixii xukuumaddii hore waraadar iyo dowladnimadii iyo guubaabo adar waa wacyigelinta heesu kula yara aynu ogeyn Soomaaliya oo faragelin lagu soo samayso oo inisa soo dirto oo maxaa la CBB soo dirto Soomaaliland oo farabaas ku hayso oo ciidamo soo tababartay dekada berbereeto buusan qarxiya maanta hadaba Soomaaliland waxay ku haysay farabaas ay Soomaaliya ku haysay maanta laakiin Soomaaliland ba saameyn ku Soomaaliya siyaasadda cusub ee xukuumadda cusub waan bogaadinaya way siyaasaddan runtii Soomaaliya intii iyadu inuu mashquul leeyahay soo faragelinay waxa weey inaynu ka shaqeysano oo aynu faragelino in door ku yeelano doorashadooda faragelinay Soomaaliland ku yeelo way door noocay ku yeelan ka sheegaya hadda anagu ku cadeeyay soo muwaadin siyaasi Soomaaliland mihi kir Soomaaliland iyo dhamaan saamileyda beelaha direed waxaan leenahay sanadkan waxaan bisaynaa oo aynu isdhisaynaa weliba oo aynu wax la qaybsanaynaa cadka weyn markuu qaato aynu ku xiga qaadanaynaa waxa weeyaan waa harti iyo daaro waxa weeyaan hogaamiye Siciid Cabdilaahi Deni haddii laga dhashay Siciid Cabdilaahi Deni hadduu kursiga Xasan Sheekh dhigi waayo dhulka hadduu sanduuqa dhulka dhigi waayo uu ogolaan waayo uu ku adkaysto boofkii weeyaan intaa la isku dooray abgaal ba ka codaynaysa sanaduuqina deegaanada abgaal bandhigaynaa waxa doorasho lagu qabanaya garow
caasimadana waa laga soo rarayaa madaxweynuhuna dani buu noqonayaa markaa meel ku bishaaraya yaa ka shaqaynaya waa laga wada shaqaynaya boqolka geeska afrika ka shaqaynaya siyaasadda somaliland oo dhan ba ka shaqaynaysa mucaarid maxaafidna ka wada shaqaynaa shacabkeena iyo taageerayaasha bulshadeena gudihii furbajoogba waxaa leenahay siyaasaddan maanta dhisaynaa waa taa laakiin haylaawin inaad meesha ka hadlaysa hargeysa tahay dani waa dhisayaa dani waa dhisay doorkii horena waa dhisay shahaadadaasa guddoonsiyey shahaado biladgeesiyeed iyo badbaadada siyaasaddii horena isaga badbaadiyey maajo kursi meeshan aad ka dhisayso jaga dhisay garow waan tegaya badii garow waan tegaya anigu casuumad rasmiya baa yaan ka helay maxaa isbedel waana waan tegaya isbedelay dhegeyso waxa isbedelay waxa weeyaan waa siyaasadda isbedeshay dhegeyso waxaan idiin sheegaynaa anigu doorkii hore doorashadii hore markuu farmaajo kursiga buu ka dhigi waayey ilaahay ka sokow iyo dani baa dhulka ka dhigay waxaana waa ka shaqaynaya waxaana ku mutaystay biladgeesiyeedkaa siiyey haddana martiqaad rasmiya ayaa madaxtooyada puntland ka helay waana dhisayaa waana ka shaqaynayaa saamaynteeduna waan leeyahay beelaha direedna runtii xushmad iyo karaamo weyn ayaan unu hayaayana iyo hayaan qadarin weyn iyo saamayn ba ku leeyahay shaqada ay ku dirsaday shaqada waxay dirsaday waajibkayga muwaadinimo iyo aragtida siyaasadeed bay dhistay horta ah ee halaasha qoladanna oo qolada adiguna todoba sanaad kasoo horjeeda qoladii horena waa qoladii aad garanaysay may fahamtay qoladaana agtooda karaamiya sharaf ku ahaa kuwana waan ku leeyahay dowladdeydii horena wala soo shaqeeyey tanna waa la shaqaynaya haddana siciid cabdilaahi deni baan madaxweynaha soomaaliya u dhisayaa anoo siyaasi xora oo madax bannaan ah wahaye marka waa shakhsiyadda waxaad ka hadlayso dhan anoo dadkayga iyo shacabkayga metelayay iyo saameyntayda iyo qaamahayga wataan dhisaya yaad ku metelaysaa iyo dhaqankayga iyo abagaadhinimadayda yaad ku metelaysaa yaad ku metelaysaa dadkayga iyo deegaanadayda ku metelaya shacabkayga ku metelaya dowladdan anta shacabkayga waxaa istaynteera degta somaliland iyo hargeysa adina geeska afrika oo dhan saamayn kule baanahay koonfur saamayn kule baanahay etoobiya saamayn kule baanahay halka lagu calay masaare wadadii waa galbeedka etoobiya aad sababa lagu calay masaare umaad ka mid noqotid marka maxaad hargeyso nin baa maxaad hargeysa waxa weeye kushitikana afri kushitika halkan imika ka hadlaynaa waa hargeysa waa somaliland siyaasadda waxa weeyaan taalla waynu dhaqaanaa arrimaha yaalla iyo mawduucyada yaalla waynu garanaynaa siyaasad halkan hargeysa imika iyo mawduucyadaad ka hadlaysaa waxa weeyaan waa arrimo uguba inaad adigu halkan joogaad tiraahdo waxaan arrimahaasaa ka shaqaynaya nin aniga xil shaqaale uma hideeco nin hora baan ahay 7 sanadood san heli jiray ay weliba korneeladu haysteen aan juuqleeyna jirin tanad waa iska badaayeen inay cid juuq diraade waxa weeye idinka talaabeed ka qaaday xukuumaddan mawduucan maanta aad ka hadlayso hargeysaad ka hadlayso Soomaaliya inaad xadhi ku mutusin karto ama waxa weeyaan ma aniga haysataa anigu nin fasax haystaan geli koran xamar baan ka soo qadiyay ka soo cashay geli ka dambana aad samaan tagaa Djibouti baan ka degaa haddana garow ayaan tegayaa dhageyso korneelada aniga aabahay geelo dilo aabahay dilo dad nool maalda aniga korneelada waxay waayeen diblomaasiyiinta dowladda xorta xalaasha in baa mutacalimiinta baa aniga juuqolaysa ee xorriyadda qowlka aaminsan hadda korneelada waxay aniga fasax aan ka haystay balba ka digay dad dambiga shaqada buu qabanay ma dad dambiga ma dambiga ku galay waxa dambiga galay okay adu ma dambiga shi hada lagu xiro oo siyaasadda Soomaaliya halkan waxa weeyaan kala gareyn oo aniga soo faragelin soo faragelin anagu ma meel baa juju meesha joogana adeer anigu sidii adu tag weydo ugu bambig beesoo siyaasiyiinta faaday xukuumadda waana aaminsaneen ama Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro inuu siyaasaddaas iyo dulnaasiyada uu aaminsan yahay kula shaqayn doono waxa weyn intii inaga laynu soo taansi inta inaga layno iman lahaa halkeena laynugu iman lahaa ilaa soo faragelina inagu may faragelin isagu maxaynu naa tadada nahra وين صار حكومة قشقيسها حكومة على يوسيلة عصب هذا ريتي سومالي فرقلنا ليش أتاكد درنا ذي لو رجل إنه فرقلنا وين نقولنا عدة كان وينسا من وينها الصومال إنك وين نقولنا وين كشقنا لكن هذا حتى واحد كان يقول يسمى دو تكتدو عويان عاد هل كشقيس هو من بحد وين تجينا وين كشقنا ولا حتى ولا كشقينا يا أنا نجا سيدا دولة وبسنا الدولة أفريقيا سودان سنة تفتح أنا قرر في سودان تفتح أنا دولة دي رأوا في أفر كيلومتر هذا أنا أمي سينا تيجي ربنا وحير والله مع معك دي إسماعيل هذا إسماعيل مرجيلا وبسين 4.5 كا هذا تاس أو كسي أقول وين وسك عشان وين بسنا قروا أنا كده سنة عاصمة قروا ماشي بحال قلنا كهوا ولا غيره